نظرنا وكدارك وحسنا بعذابي كان شيطانك كان waxay ahayd xilli habeen ah oo ciyaar xoogan ku dhex martay garoonka kubadda cagta Engineer Irisow kooxaha ka kala socday degmooyinka Waaberi iyo Dharkeenley iyagoona ciyaarayay kulanka kama dambaysta ee tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir waxaana munaasabadda ciyaarta ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalka Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir xiriirka kubadda cagta gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiin kale labada kooxood ayaa mid walba dhankeeda waxa ay muujisay sida ay uga go'an tahay inay qaado koobka degmooyinka marka loo fiiriyo sida ay daafac ahaan isu soo xoojiyeen iyadoona ciyaarta qaybtii hore ku soo idlaatay eber iyo eber qaybtii labaad ee ciyaarta marka la isku soo laabtay kooxaha ayaa waxa ay sameeyeen bedelo xoogan oo dhanka weerarka ah si isbedel ciyaarta looga helo balse bedeladaasi wax natiijo ah ma soo kordhin iyadoona ugu dambeyn la isla aaday rigoolayaal ama gool kulaad waxaana sidaas koobkii ku qaaday degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir kadib markii laba gool kulaad ay iska qasaariyeen kooxda degmada Waaberi goolhayaha kooxda Dharkeenley oo qayb lixaad leh ka qaatay guusha kooxdiisa ayaa dareenkiisa nooga warbixiyay horta aadan ugu faraxsanahay guushaan caawa gaaray mar horaana rajaynayay inaan guushaan aan gaari karo waana ku hamin weynaa inaan guushaan aan gaaro maadaasina waxay u sugnaatay Allah subhanahu wa ta'ala ka soko waxay u sugnaatay my team is aan aad u jeclahay intaasi kadib waxaa la guda galay bixinta abaalmarinada kala duwan ee koobka degmooyinka gudoomiyaha sportska gobolka Banaadir Xasan Wiish iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish ayaa ugu horeyn munaasabada ka hadlay shakhsi walba dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed meel walba ay joogo in uu xaq u leeyahay inuu ka qayb qaato qaranka Soomaaliyeed aadaan ugu mahadcelinahay inta ka qayb qaatay gaar ahaan gudoomiyaasha degmooyinka oo juhdi badan ku bixiyay intuu tartanka socday gaar ahaan gudoomiyaasha degmooyinka sportiga iyo saxaafadda oo mar walba ayagana nagarab taagan waxa aan qabanana si faafiyo aad ugu mahadcelinayaa sida aad la socotaan gobolka Banaadir waxa uu soo maray marxalado adag oo kala gedisan dowladii aan soo dhaafnay dagaal sokeeye ayaa jiri jiray burbur ayaa jiri jiray xumaan kasta waxa aan ku bedelnay wanaagga maanta aad arkaysaan taasi wax iska yimid ma aha tala saarashada Allah ka sokow dadaal la sameeyay ayay noogu suura gashay jawga noocaana inaan soo bandhigno walaalayaal marka ay yimaadaan masiibooyinka aadanaha uu keeno sida dagaalada iyo waxa la midka ah iyo midka dabiiciga ah sida daadadka iyo abaaraha xilligaas oo kale waxa loo baahan yahay in gacan laga helo dhalinyarada Soomaaliyeed oo aan hubno inay yihiin kaydka dhabta ah ee ummadda Soomaaliyeed ugu dambeyn wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa soo xirtay tartanka koobka degmooyinka gobolka Banaadir iyadoona koobka ay guddoonsiisay degmadii ku guuleysatay ee Dharkeenley koobka degmada la galbanaysa oo aan caawa filaayo in xamar muqdisho gobolka Banaadir caasimadda dalka cirifkeeda geeska ah inta koobka laga qaado geeskeeda kale lagu geyn doono xiisaha loo qabo degmadii ay qaaday bartu waa garoon buqacadii ciyaaraha barbaartii la soo xulay tartan ay isugu soo baxeen laguma helin wax kale dadkaas uu isugu tashado awoodda Ilaahay ka sokow shacabka iskale shacabkana raali ka ah caawiyaal kalaba inay sidaas xamar ugu noolaadaan uguna joogaan haddii Allaha awoodda leh ogolaado nabadeynalka daaran waxa tahay nimcada eebe kana shaydaan insha Allah سيد علي تاتكو دلك TV مقدش